qisada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa noogu qisooyey. Waxay ahaayeen 3 nin oo reer bani Israa'iil ah oo Ilaahay imtixaamay. Saddexdooda mid ka mid ah waxa uu qabay cudurka baraska ayuu qabay. Midka labaadna bidaar ayuu lahaa oo waqtina jirkiisa kuma oolin. Midka saddexaadna waxa uu lahaa indhool ayuu ahaa. Saddexdoodana mid kasta arrintiisa ayuu ku mashquulsanaa oo murugo ayuu ku heysay. oo midka indho la'aanta ayuu ka murugeysnaa, kan baraska qaba baraska ayuu ka murugeysnaa oo dhibaato weyn ayaa ku hayay. Intaas waxaa u sii dheereed saddexdoodaba waxay ahaayeen 3 nin oo faqri ah oo xoola ma aysan haysan. Dadka ay la deganayeenna ma aysan la macaamili jirin oo macaamil wanaagsan kalama aysan kulmin. Midkii koowaad oo baraska qabay asoo gurigiisa hor fadhiyo aad iyo aadna u murugaysan ayaa waxa uu imaaday malagaas oo Ilaahay u soo diray. Wuxuuna u imaaday suurad bini aadan. Waa uu salaamay kadibna waxa uu yiraahday niyow maxaad la fakaraysaa oo la murugaysan tahay. Ninkiina waxa uu jawaabay waa u jeedaa dhibka haysto, waxaan qabaa baras ayaan qabaa, bulshada ma dhexgeli karo, waa u jeedaa faqrina waan ahay. Ninkii ayaa ugu jawaabay oo malaga ahaa haddii ka waran oo Ilaahay ka caafi xanuunkan. Asagana waxa ugu jawaabay aad iyo aad ayaan ugu farxi lahaa. Kadib gacanta ayuu ka mariyay. Ninkiina si dhaqso leh ayaa cudurkii Ilaahay ugu baabi'iyay oo jirkiisii caadi ayuu noqday. Aad iyo aad ayuuna u farxay. Malagii ayaa weydiiyay xoolaha maxaad ugu jeceshahay. Ninkiina waxa uu ku jawaabay xoolaha waxaan u jeclahay geela. Malagiina ninkii waxa uu siiyay geel. Wuxuu yiraahday geelkan adiga iska leh ee dhaqaaleyso. Ninkiina arrintii aad iyo aad ayuu ugu farxay waana uu gudoomay. Malagii hawshiisii ayuu sii watay oo waxa uu u tagay ninkii bidaarta lahaa oo meel fadhiyo. Waa uu salaamay. Salaan kadib waxa uu weydiiyay niyahu maxaa ka murujiyay oo meeshan u fadhisaa. Ninkiina waxa uu yiraahday waa u jeedaa anigu bidaar ayaan leeyahay, hantina malihi oo faqiir ayaan ahay. Ninkiina waxa uu jawaabay ka waran haddii aad tintaada heshid oo Ilaahay tintaada kuu soo celiyo. Ninkiina waxa uu yiraahday aad iyo aad ayaan ugu farxi lahaa. Malagii madaxii ayuu ka salaaxay ninkii, isla markiina ninkii timo ayaa u soo baxay. Aad ayuu ugu farxay timaha u soo baxay. Waxay ahaayeen timo aad iyo aad u qurux badan. Kadib malagii ninkii waxa uu weydiiyay xoolo adduunyo maxaad ugu jeceshahay in heshid. Kiina waxa uu ku jawaabay anigu waxaan ugu jeclahay xoolo in aan ka yeesho lo ayuu yiraahday. Ninkii malaga ahaana waxa uu yiraahday xoolahan lo'da adiga ayaa iska leh ee dhaqaaleyso. Ninkii aad iyo aad ayuu runtii ugu sii farxay. Malagii hawshiisii ayuu iska sii watay oo waxa uu u tagay indhoolkii ayuu u tagay asagoo weli suurad bini aadan wato. Salaamay. Salaan kadibna waxa uu weydiiyay xaalkiisii. Kii indhoolkan waxa uu sheegay inuu indhaha la yahay. Malagiina wuxuu yiraahday ka waran haddii Ilaahay indhahaaga uu ku soo celsho. Kii indhoolkan wuxuu yiraahday aad iyo aad ayaan ugu farxi lahaa, Ilaahayna waa u mahad celin lahaa. Kii indhoolka ahaana sidii saaxiibadiisa oo kale araggii ayaa u soo noqday. Aad iyo aad ayuu u farxay, Ilaahayna u baryay. Malagii ayaa weydiiyay xoolo adduunyo maxaad ugu jeceshahay. Kii indhoolkiina waxa uu ku jawaabay xoolaha ani waxaan ugu jeclahay ariga. Malagii asagana sidoo kale saaxiibadiis ninkii waxa uu guddoonsiiyay ari ayuu siiyay. Wuxuu yiraahday adigan adiga iska leh ee dhaqaaleyso. Waa uuna ka tegay. In muddo ah markii ay ka soo wareegtay kii baraska qabay oo Ilaahay caafiyay ee geel la siiyay geeliisii aad iyo aad ayuu u batay oo geel badan ayuu yeeshay. Adoomo badan iyo qowsaaro badanna waa uu yeeshay. Guryana Ilaahay waa uu siiyay. oo xoolihiisii xoolo isgaarin ayay noqotay. Sidoo kale kii bidaarta qabay ee Ilaahay asagana timo u soo bixiyay. Neefkii lo'da ahaa Ilaahay waa u barakay oo lo'diisii waxay noqotay lo aad iyo aad u fara badan. Guryo ayuu yeeshay, timo dhaadheer iyo garweyn ayuu yeeshay oo aad u qurux badan. Dadkana wuxuu ahaa mid ay tintiisa aad iyo aad u jecel yihiin. Midkii indhoolka ahaan jiray asana sidoo kale arigii Allah ayaa u barakeeyay oo arigiisi wuxuu noqday ari aad iyo aad u tiro badan oo shaqaale badan ay raacayaan ayuu noqday.
malagii ayaa mar labaad nimankii kusoo noqday. Kow wuxuu ka bilaabay ninkii baraska qabi jiray ayuu ka bilaabay. Kii baraska qabi jiray markuu ninka arkay wuxuu soo xasuusay siduu ahaan jiray, laakiin wax naxariis ah uma uusan samaynin. Ninkii ayaa waxa uu weydiiyey, ni aniga musaafir ayaan ahay, jidkan ayaa maraya, xoolana ma haysto, xanuunkan baraskana waa qabaa oo bulshada ma dhex geli karo. Fadlan waxaan kaa codsanayaa walaalow inaad hal neef ay siisid. Ninkiina waa uu diiday, neefku uma hayo. Ninkii ayaa wuxuu yiraahday, waxaa laga yaabaa xanuunkaygan oo kale in aad qabi jirtay oo faqiirna aad ahaan jirtay, ii naxariiso. Ninkii oo xanaaqsan ayaa yiraahday, war beenta, aniga xoolahan abka ab ayaan iska dhaxalnay, aabay oo ka dhaxlay, aabiis kaloo kasii dhaxlay, oo xoolahan waa xoolo farac ka imaaday, anaga faqri weligeen ma arkinba. Ninkii ayaa yiraahday, niyahow waxaa laga yaabaa haddii ay beenta tahay, xanuunkaagii Allah kugu soo celsho, xoolahan Allah ka qaado. Malagii waa iska sii baxay oo waxa uu aaday kii bidaarta lahaan jiray. Waxa uu ugu tegay suuraddii waagii hore oo asaga lahaan jiray oo kale oo timo la'aan ah ayuu ugu tegay. Oo waxa uuna yiraahday, niyahow waxaan doonayaa in aad caawisid, anigu waxaan ahay musaafir, waxaan jidkan ku marano ma haysto, waxaan rabaa hal neef in ay siisid. Ninkii isxanaajinayay ayaa yiraahday, ma waxaad maqashay xoolo lagu dheelo ayaad u leestaa? Ninkii masaakiinkan wuxuu yiraahday, maya duruuf ayaa i keentay oo gaajo xun ayaa i hayso, waa ujeedaa dhibka iga muuqdo. Ninkii wuxuu yiraahday, xoolo kuma hayo ee dhaaf. Ninkii masaakiinka ayaa waxaa yiraahday, ma laga yaabaa aniga inaad sideedoo kale faqiir ahaan jirtay, dhibkan i haysana oo geysan jiray aad iska ilowday markuu Ilaahay xoolo ku siiyey, xanuunkana uu ka caafiyey. Ninkii xanaaqsan ayaa yiraahday, waxaan faqri ma soo arkin, xoolahan abka ab ayaa iska soo dhaxalnay, bidaar iyo timo la'aana weligii ma arkin, oo timahan quruxda badan ayadana waa sinji ayuu ugu jawaabay. Malagii ayaa ninka u dhowaaday oo wuxuu yiraahday, arrinkan haddii ay beenta tahay, sidaadii hore Allah kugu soo celsho, xoolahana Allah ka qaado. Malagii howshiisii ayuu sii watay oo waa uu sii baxay. Waxa uu u tegay ninkii indhoolka ahaa ayuu u tegay. Weliba waxa uu u tegay asaga oo indhool ah. Waa uu salaamay si wanaagsan, ninkii indhaha Ilaahay u furayna si fiican ayuu salaanta uga qaaday. Markuu arkay ninka indhoolka ah u soo aaday oo u soo kacay. Indhoolkii wuxuu yiraahday, aniga musaafir ayaan ahay, indhaha ayaan la'ahay, waxaan rabaa xoolo in ay siisid, jidkan ku sii mara ayaan u baahanahay. Ninkii ariga lahaa indhoolka ahaan jiray ayaa soo kacay. Ninkii ayaa wuxuu yiraahday, qalbiga khayr u sheeg, xoolo aad jidkan ku martid waa lagu siinayaa, xoolo aad jid ku martid in ka badan. Aniga sidaadoo kale indhool ahaan jiray, faqiirna waan ahaan jiray. Soo dhowaaw, marxaba, gacmo furan ku soo dhowaaw, xoolahana ha ka murkin, xoolaha waa xoolahaagii. Inta u baahdid ayaa ka qaadanaysaa, neef iyo ka badan waa helaysaa. Waana uu fadhiisiyey. Ninkiina marxabeen kadib malagii ayaa la hadlay. Wuxuu yiraahday, niyahow aniga qof caadiya ma ihi, indhoolna ma ihi, waxaan ahay malag Ilaahay kuu soo diray, in uu ku imtixaamana lagugu soo diray. waana ku faa'iiday imtixaankii oo waa ku foostay. Xoolahaaga Allah kuu barakeeyo, caafimaadkana Allah kuu barakeeyo. Sidoo kale labadaadii saaxiib ee midna baraska qabay midna bidaarta lahaan jiray ayinka imtixaankii waa ku dhaceen oo Ilaahay masiibo ayuu ugu bedelay nimcadii Ilaahay siiyey. Markii ay ku kufriyeen nimcadii Ilaahay siiyey, masiibo ayaa Ilaahay ugu bedelay. qisadan waa qiso xaqiiqo nabiga nooga sheekeeyey. waxaanu ka qaadanaynaa haddii nimcada Ilaahay uu ku siiyey aad ku shukrisid, waa Ilaahay oo kuu zaa'idinayaa. wala in kafartum inna cadaabii la shadiid, haddii aad ku kufrisidna cadaabta Ilaahay waa mid daran. labadii oo baraska qabay iyo midkii oo lahaan jiray bidaarta ayaa waxa ay ku noqdeen caqabadoodii hore. oo kii baraska qabay, baraskii ayaa Ilaahay ku soo celshay, xoolihiina waa ay ka baaba'een. sidoo kale midkii lahaan jiray bidaartii asagana tintii oo labadan beri ku faanayay quruxdeedii ayadana way ka buubtay oo wuxuu ku soo noqday bidaartiisii. lo'diina waa ay baaba'day, iyo guryihii iyo beerihii. labadoodii oo faqiiro ah, xanuunkiina qabo
ayay waxay isku wareysteen bannaanka, mid kastana asoo oynaya shallaytadaydii maxaan masaakiinta u quudin waayey, dhibkan anaa isku keensaday. nin baa ii imaaday baras qabi jiray, waan xumeeyey. ninkii noolka bidaarta xoyeys nin sidoo kale ii imaaday, gacmaheenaan ku doonanay dhibaatadan. maalinkaasna mar oo shallay u tarayo ma ahayn, oo markii imtixaankii ay ku dhaceen. ilaahay imtixaanka adduunyo, imtixaanka aakhiro allaha nagu badbaadiyo. waad ku mahadsan tahay daawashadaada, aada iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay. sidoo kale walaal hadaa ka hesay qisadan subscribe noo saar. subscribe-ka adigu wax kagu dhibi mayso, annagana waxaan ka helaynaa dhiirigelin insha allahu tacaala. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.